ومركلي مقال كلا ولا له قال السود وهذا مقال كان وحده دارين هدو إله يدمه صدق حيابات أيو دارين هدو الله يدمه مدكوا بعد واحد تهاي بارني مضى ilmaha oo waalidkiisa baari u noqda iyo wax uu ka dhaxli karo oo wanaaga ah halka kale oo bilcagsigeeda mid labaad ay tahay inuu waalidka ilmuhu inuu caasi ku noqdo waalidkiisa iyo tan labaad oo ah guurka badan ama ilmaha oo qofku inuu yacni ilmo dhowr nooca inuu haysto iyo waxyaabo badan caqabadaha ay ku keeni karto dadka shakhsiyadooda ayagoo aan garanaynin ama aan ogeyn qofka uu yahay qofkaasi بالمثل وأذيقو كلمانتا يعني شخصية هذا يأود إلهي كسي وحيتها ما بقى السنة هذا وحايستا المكلا النوع دور عنق أما دور آبا ذوك على الشيء دواتي يكون كيني كرتو صدح ذا السنوع يوحن بارسية هذو الله قدره وحارتشين يا إن أنا صدح ذا مدوب لمشي عندي قدونه ولا لبضنا وحارتشين إني برامج كان أما كليب كان إني ونقون دونه وانو iyo dhiirigelin inta inuu noqon doona rajeynaya haduu Ilaahay qadaro mar walba waxaan jeclahay walaalahayga Soomaaliyeed ama hooyo ah ama aabbo ah ama wiil ama gabar waxa doonta ahaabe in waxyaabaha aan ka hadlayo inay ku taaban doonaan dhinacna ay ka soo geli doonaan ayaan rajeynaa haduu Ilaahay qadaro soo dhawaada marka qodobka koowaad aan ku bilaabaya waxay tahay inuu ilmuhu waalidkiisa baari u noqdo iyo waxa ay ka saacideynayso walaal macaani inaad waalidkaaga baari u noqoto horta number 1 adiga aakhiradaada ay anfacaysaa oo Ilaahay markuu iska hadlay wuxuu ku xijiyo waalidka kuma uusan xajin soonka salaada xajka wax qofka laga rabo kuma uusan xijin asaga markuu iska hadlay wuxuu ku xijiyo waalidka hadduu Ilaahay ka hadli lahay salaada soonka waxyaabaha dad laga rabo waxbay ahaan leed laakiin Ilaahay wuxuu ka hadlay oo ku xijiya asaga wuxuu isku xijiyay macna Ilaahay kuwan uu ka hadlay oo uu waajib yeelay laakiin shay Ilaahay markuu asaga iska hadlay oo asagu isku xijiyay waxay waalidka waxaad ogaataa walaal ama wiil laha ama gabar ahaa adiga damcan waa soo kortay waa soo weynaatay waa lagu soo barbaariyay waalidkaaga xaqi aad ku lahayd oo ka soo baxayo 15 sano iyo ka badan ayuu ku soo gaarsiiyay ku dhawaad 20 sano ilaa maanta adigu aad noqoto qof reer leh oo isku filan la aad noqoto waalidka ayaa ku soo haayay oo gacanta kugu soo haayay maanta markaad qof reer la noqotay oo meel degtay oo aad waalidkaaga uu ku baahan yahay asaga hadii aad waalidkaaga wadada oo ku mariyo aad marin weyso maxaa rajeynaysaa maxaa sugaysaa baliishe adiga waxaa sugayso maxaa waaye ya gabar ahaa oo wiil ahaa maalintii lagu soo koriyay adiga hooyada ay aabaha ay maaragtay ay ku soo tabantaabeen lagu soo koriyeen ay qofkaas soo dhigeen wax ku soo bareen waxay ku wax barayeen lambar 1 in adigu horta wax tarto oo qof naftiisa ku fil aad noqoto lambar 2 in iyaga wax tarto oo maanta marka iyaga weynaadeen adiga aad iyaga wax tarto oo iyaga ay ku baahan yihiin oo iyaga daryeesho ay ku soo korinayeen soo koriska lagu soo korinayo ma ahayn inaad maalinta weynaato doorkaaga iska marto waxa aad sameeyso ma aysan ahayn waxay ahayd naftaadana wax tarto iyagana inaad wax tarto oo maanta waalid beer geed ayaga oo soo abuurto oo soo weynaad inaad noqoto ayay maaragtay ayaga rabeen Ilaahayna waa uu ku soo koriyo oo kula soo garab galay hadana wuxuu ku ag dhigay oo adiga laga rabo inaad waalidkaaga oo noqoto baari wadada ay ku soo koriyeen wanaagsaneedna aad ayagana la marto oo maanta ay ku baahan yihiin xoogaaga ay rabaan aad ayaga maarkiin aad daryeesho qiso yar waalidka qusaysa ayaan ma sha Allah ku soo dari doona haduu Allah idmo aniga qofka dadka qisooyinka dhageystaan marka qisabana ka sheekeynayo mid lamid ah ku soo dhacay runta beenta iska dhoo Ilaahay been hanaga dhowro midda marka aad ugu ka faa'iideyso in Ilaahay marka waalidkaaga u noqoto baari oo Ilaahay adiga ku dhaxal siinayo waxay tahay number 1 in irduusu ka furaan inaad qayr walba oo adigu aad rabto inaad hesho wax walba adigu aad rajeynayso inaad adigu hesho oo iridad furtaaba ay ku furanto oo waxaad noqonayso qof duco waalid wata ma sha Allah qofku duco waalid wato waxba ma dhibaan waxba ma cusleeyaan caqabad walba oo ku imaata hadii dhabarkaas oo dharbaaxaan waxa noqonaysa qof irido galaba ay u furanto qof wuxuu israa bilaab ay u kacaan bad noqonaysa marka waxaad ka dhaxlaysaa faa'iidadaas number 1 tan labaad oo ka dhaxlaysaa waxay tahay deganaan inaad qalbi fiican ku seexato
in waalidka markuu raali ka yahay allihii ku unta lambar 1 intaas waajibaadkiisa soo gudubta asaga aad raali gelisay waalidkiina uu raali ka yahay qalbi fiican ku seexanaysa deganaan ayaa ku seexanaysa murug iyo stress ma qabaysid hadee balaayo kugu dhacdo ama masiibo ku soo weerarto marna qalbigaaga stress ama walwal ah ma qabayo habaar waalid ayaa qabtaa ma qabaayo waayo waalidka waa raali gelisay waxa rabaan iyo wixii karankaagaan waa u sameynaysaa lambarka saddexaad oo dhaxlaysa waxay tahay in adiga ilmahaaga baari ku noqdaan ila adiga ayaa baariya adiga ayaa waalidkaaga u dhimriya adiga waalidkaaga u naxariista adaa wixii maanta gacantaada soo gala intaad cid kale si waalidkaaga maaragtay uga farxiya adiga ayaa waalidkaaga la jecel meel walba inaad gaarsiiso ilaahayna wuxuu kuugu bedelayaa booskaas ilmahaaga inay kuu noqdaan ilmo baariya ilmo toosan inay kuu noqdaan ayuu ilaah subxaanahu wa tacaala ku siinayaa hadda kahor waxaa jiray ninkaas hooyadiis ayaa maaragtay hooyadiis ayuu baari u ahaa hooyadii way dhimatay markii hooyadiisa dhimatay ayuu wuxuu sameeyay subxaanallah wuxuu sameeyay hooyadiis sadaqa jari u bixin jiray masaajid ayuu dhisayaa ama hadii awoodiisaba ay ahayn masaajidada wuxuu geynayaa faranjiyeer qaboojiye biyo masaajid walba wuxuu geynayaa faranjiyeer wadooyinka shaarica waaweynka dadka badan ay maraan wuxuu dhigayaa fridge biyo ayuu ku shubayaa waqaf ayaa lagu dul qorayaa qof kasta oo wadada maray ee ooman biyaha ayuu la baxayaa oo maasha Allah waa biyo bila flus oo bila lacag oo halkaas ka yaalo qabow hadana yaa u baahneen qof walba iska qaadanaya wiilkiisa curad ayaa macnaha wuxuu taasiir ku sameeyay sida aabihiis oo waalidkiisa dhintay ugu sameeynayo baarinimada oo sadaqa ugu bixinayo wuxuu go'aansaday inuu asaguna aabihiisa nool uu sadaqa u bixiyo wax u sameeyo lacagta breakfast-ga loo siiyo ilmo iskuul akhrisanaya oo weynayn ayuu maalin kasta qayb ka jaraa maalin walba wuxuu ka jaraa maalin walba meel ayuu ku ridaa ayuu sanado ayuu aroorinayay maalinkii dambe ayaa waxaa jiray masaajid guriga u dhow oo markaas odaga uu ilaahayba maaragtay tusin inuu yacni fridge la'aan iyo wax waayo odagu magaalada dhan iyo wadooyinka ayuu faranjeerada dhigaa oo biyaha dhigaa hooyadiisoo dhimata u sadaqaynayaa wiilkii marka wuxuu sameeyay wiilal asxaab oo saaxiibadiisu watay faranjeer iyo soo gaday faranjeerka iyo masaajidka soo dhigay marka aabii wuxuu arkay wiilal dhalinyaraha oo fridge u sii wada masaajidka ayuu arkay asagoo wiilkiisa si kale u fahmin u garanin ayuu wuxuu arkay wiilal fridge u sii wada masaajidka wuxuu wuxuu inta fridge meel dhigaysay masaajidkan maxaa ilaahay kugu tusin subxaanallah ayuu dhahay cabaar markii la joogay salaadii cashar laga soo baxay ayaa waxa arkay ninkii imaamkii markaas wuxuu ku yiri ilaahay khayr ha ku sii hebelow aad baad nooga farxisay faranjeera noo soo dhiibtay ilaahay ha kuu naxariisto aakhiriya adduunba war aniga maahan ayuu dhahay qofka fridge-ka keenay adiga ayaa keenay wiilkaaga ayaa keenay wuxuuna dhahay aabba ayaa soo dhiibay maasha Allah aabihii ooyin iyo farxad ayaa isla qabatay hal mar wuxuu la oynayaa maxaa waaye geedku asaga beeray ee uu waraabinayay biyaha ku shubayay sanad walba iyo bil walba iyo saacad walba ila cunugaaga maalin walba ayaad quudinaysaa wax sameynaa geeda biyo ku shubaysay oo soo baxay miro wanaagsan dhalay wiilkiiba u yiri wuxuu aabo haga keenta lacagta aad ku bixiso fridge-ka wuxuu aabo lacagta aan breakfast-ga u qaato ayaan lacag ka aruurshay in badan aan ka aruurin jiray dabadeedna fridge ayaan ku soo gaday adigoo nool ayaan kugu baxshay ayuu yiri sadaqa jaariyan kaaga dhigay adigoo nool waayo adigu hooyada oo dhimatay baad magaalada dhan iyo wadooyinka dhamaro dhan ayaad u dhigaysaa fridge ayaad u dhigaysaa marka aniguna aabahayow adigoo nool baan maanta kuu sadaqiyay ayuu yiri maasha Allah maanta maxaa sugay marka inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala oo adigana kaaga dhigo ilmaha noocaas ah wax ka fiican miyaa jiro wax ka fiican ma jiro waa maya marka waxaad ogaataa hadii aad waalidkaaga baar u noqoto inuu ilaahay adiga ilmahaaga baarakaaga dhigayo waxyaabaha ka dhaxleydana waa kuu sheego in irid kasta kuu furanto inaad si wanaagsan oo qalbi wanaagsan u seexato inuu ilmahaaga baar noqdo ayaad ka dhaxlaysaa marka ogaaw haddaad caasi ku noqotaa kuu soo hartay subxaanallah caasi markaad ku noqoto adigoon adduunka ka tegin ayaad cadaabta adduunka galaysaa maxaa yeelay waxaa la yidhi adduunka waxaa ku taala janno iyo naar ayaa ku taala ayaa la yidhi qofkii jannada adduunka gala jannada aakhira ayuu galaa kii naarta adduunka gala naarta aakhira ayuu galaa qofka aad arkaysa adduunka asagoo jooga asagoo cadaaban
asagoo dhiban asagoo rafaadsan isagoon xarig u qabanaynin isagoo wax alla wax isu qaba aysan jirin waalidkiisa caasiga ku ah ilaahay uunta aan garanaynin ilaa qof ilaahay yaqaana salaadiisa waajibka ilaashanaya ilaahay baryaya waalidka caasi kuma noqdo mana arkaysidba qof baari waalid allah baari u ah oo ilaahay waajibaadkiisa gudanaya hadana waalidkiisa caasi ku ama arkaysa xaqiiq marka waxaad ogaataa inaad adduunka cadaabta adduunka ku jirto intaad adduunka joogto qaxanqax iyo cadaab iyo nadar xumi iyo dhibaato iyo rafaad iyo faqri iyo waxaan dhammaad lahayn iyo murug iyo stress aan dhammaanin inaad ku jirayso la socod markaad waalidkaaga ku caasad maxaa yeelay adduunka waalidka sababta kuugu ah inaad adduunka imaato inaad adduunkan ku baashaasho inaad adduunka hadduu macaan leeyahay macaanto qofkii sababta kuugu ahaa waa waalidkaaga waa kusoo kori waa kusoo kobi waxbaa kusoo baray weligiis wuxuu lahaa saahas yuusa qof u fiirinin yuusa arkin bal waxaa jira kuwa agoonnimo lagu soo koriyey waxaa jira kuwa hooyadu iyo dusha kusoo qaaday aabala-aan ay soo korisay iyadoo waxba haysanin ee shaqo la-aan iyadoo ah soo korisay laga yaabay naasaha ay soo nuujinaysay wax ay cunto iyadoon haysan gaajo dareemaysa inay istiri gaajo daraadeeda ama wadnuhu ku istaagaa labada naas mid kamida kan kalaha siinini ee xaaladda noocaas ay la soo martay maanta markay rabtay inuu lugaha u dhaqo inuu yiraaho hooyo macaan intaan iyo intaan ayaan maanta ku soo gartay ama hadduu soo xababa hayne uu yiraaho hooyo xilli walba baari uu yahay oo habeen kasta dul taagan yahay ee xilli kasta waxa ay rabto hadday tala tahay iyo haddii wax iyada ay rabto ay u sheegayso la qaadanaya oo la fahmaya ayay rabte ma ahayn inuu ka dhaqaaqo ma ahayn inuu qofkaasi waalidkiisa ku caasiyo waxay ahayd rafaadka iyo dhibka ee lasoo martay inuu ilowsiiyo qofkaasi ilmihiisa ee lasoo martay inuu ilmuhu waalidka ilowsiiyaa laga rabay marka waxaad ogaataa haddii aad waalid caasita adduunka inaad ku jirto naarta adduunka aakhirana ilaah ku baxsho ayaad leedahay intii nolosha kugu jirto hadda waxaan kugula talinayaa inaad ilaahay gacmaha u horsato inaad allah u noqoto inaad waalidkaaga raali geliso allihii ku untana aad raali geliso ood waalidkaa baari u noqoto ood waalidkaa ducada ka xado ood ducada uga naxsato oo waxaad awoodaad u keento oo maanta waxa uu rabo iyo wadada inaad marto uu rabo aad marto oo aad tiraa samcan wadaacan hooyo ama aabo inaad tira ayaa lagaa rabaa intaa markaa samaysto ilaahay baa kuu naxariisanaya adigana farxadaa ku noolaanaysa niyad qurux badan ku seexanaysa waxa cunto ayaa ku deeqaya wajigaaga ayaa dhalaalaya ducada markasta ay kusoo duceynayaan waalidka hooyo ama aaba kii aa haysata ayaa idaha kuu furay taas la soco ogaaw halkaas oo gudbayaa baarnimada iyo caasinimada labadaba waxaan usoo gudbayaa guurka faraha badan ee gabadhu ay istiraahdo maanta alleele kan guurso beri markay aragto 5 cunug 6 cunug oo kala aab ayadoo haysatana ay istiraa shakhsiyadaada qof xun ayaa tahay horta guurkiisa dhan waa calaf guurkiisa dhanba waa calaf waa god mugdiyo gacanta la gelsho oo wax kaaga soo baxaya aadan marna ogin waaye ilaahay adiga maaragtay uma haysatid yacni ma haysta qof ma jiro qof haysta damaanad inuu maanta ninkuu guursado nin fiican u noqonayo inuu maanta ninkuu guursado ku dhameysanayo qof damaanad u haysta lama arko laakiin waxaa lagaa rabaa waxaan arka gabdho fara badan oo intaas cunug haysta oo kala nooc ah oo aabayaashaasi mid kamid ama laba kamid ah ilmaha ku daryeelin ee isdhahay shakhsiyadaada aad bay u xun tahay qof xun ayaa taas dhaha ayaa jiro laakiin qof xun ma tihidi calafka horta waa gooniyo waa calafka ilaahayba qofka u toosiya balse adiga waxaa jiraan wax adiga kugu saabsan oo maanta aad adigu wax kasta go-aankeeda qaadan karto adigu aad dumi karto aadna dhisi karta ayaa jira maanta ninaad guursatay 2 cunug 6 cunug ayaa haysataa waxaad aragtay ninka inuusan maaragtay waxa aragtay ku siineynin in sida aragtay aad ka helaynin ayaad aragtay uma sabraysid wala aniga 15 jir ama ahday aragtay anoo 20 jir aad shalay aragtay sila ay rafaadka kuma jiri kara aniga ilmaha maslaxadooda ma fiirinaysid waas ogtaa birinaada nin dhaafaynin inaadan nin la-aan joogaynin adiga waas ogtahay waxaa leedahay aniga saan anoo eeg ma aniga nin gumaysanaya mid kale ayaan guursanaya ilmahan bataatan kuma jiraan liiska naxariista iyo waxa loo fiirin ay kuma jiraan
iyada iska fikirayso waxay leedahay ani saana u ekahee ninka maartay gumeysana maanta yuu yahay boqolaal banaanka ay taagan halkaas gurigeeda ku duminaysaa nin kale ay guursanaysaa dhibaato ay ka soo gaaraysa ninkaas kale waxaa laga yaabaa sida waayahan dhacda inuu ilmihi dhibaato uga geysto inuu ilmihi ka dilo inuu dhib u geysto inuu iyadiiba maaragtay silac iyo rafaad kale ilmo kale ilmiyo intii ka badan silac badan uu kusii raro haddana ay tira fur saddexaad ay guursato asal laba saddex ay u dhasho haddana sidoo kale ay dhacdo ilmihiyo 5 iyo 6 oo kala nooc ee markaas niyo jabto istiraahdo maya aniga maxaa igu dhacay talo saddexda nin isku mid ma ahayn ani sidee ahaa maxay ka qaldanay inteen la maanta xisaabtan gelaysaa ninka ugu horeeyay dabeecadda noocaas ayuu lahaa dabeecad kaliya ugu xuma maxaa ugu dul qaadan waayay inaad tiraahdo lama baahan inaad shayga noocaas oo dhan aad gasho ilaahay waa kuu qadaray maanta 4 iyo 5 ay haysataa 4 iyo 5 ayaad haysataa 4 iyo 5 taada maagnimo iyo karti ilaahay inta la soo baxdo ayaga ilma ka dhig meel ka soo saar runtii qof aad u cajiib wuxuu iga sheekeeyay oo anigu maaragtay dadka artiga qaaliga ku ah kamid ah wuxuu iga sheekeeyay 8 caruur ah maama haysata 8daas laba kasta oday ayaa dhalay laba kasta 4 nin ayay lababa mid dhashay maamadani waxay ahayd qof shaqaysta ay ahayd ninka ugu horeeyay waa ka dhintay oo labada u dhashay ka dhintay iyadoo labada cunug haysata shaqaysanaysa ayaa nin helay ninkii baa guursaday cunuga u dhashay kii kale uurkiisa leh ayuu kii labad uurkiisa leh ay wixii aragtay ninkii inuu iyada wax ka sugaayo oo si shaqaysanaynin markaas tiriya iska keefur furitir kuma furaayo yiri waraanay ima qabi kartid hadaan ilmahan aadan maaragtay ugu yaraan markaan shaqeeyo ilmahaada haynin ama aadan shaqo aada biil keensanaynin furitir dad u soo wacata adiga markuu isku dhidhajiyay waa laga furay 4 cunug haysataa 4 laba aaba oo laba agoonta haysataa way kadib waa naag shaqaysanayso dad suuq ku jirtay nin kale ayay heshay ninkii kale ayadoo laba cunug u haysa ay waxay aragtay ninkii ay rabtay inuusan ahayn uusan noqonaynin bay aragtay laakiin xoogaa ku war waxba ka duunaayo nin iska masaakiin oo iska qaboobo ayuu ahaa waxay tiri dhageyso aniga iyo adiga isma qabi karno isma qabi karnay tiri walaalo lacag inta si lacagta qaadatid naag yar ku guurso orda dhaafay tiri dhaaf yani waxay aragtay inuusan ninkii ay ilmahan la kurlay inuusan ahayn waayo 4 cunug ay haysatay horay asagan laba u dhashay 6 cunug ma haysataa 6daas cunug way shaqeynaysaa hadana iyadoo shaqeynaysa oo qajacleynaysa waxay tiri ninkii sida waan saga fur lacag sida saga furay tiri ayaan mareysii joogto waaga isu ilmihiisa soo koran xoogaa ay ninka la guursatay ninkii kale ayadoo laba u leh hadana midna markaas dhashay midna uu u roon yahay ayuu ka dhintay hadana 8 cunug oo 4 aaba kala ah ay soo korisay waligood yaalahood ilmahaasi ma dareemin inay kala aaba yihiin waxaad arkaysaa hooyo ilmo dhashay oo ilmo kala aaba dhashay ee ilmi dhexdooda ku sheekeynaysa maaragtay isku aaba maahan inay isla dhalan bay ay dareemayaan isku aabahayna wax adaa wada dhalay calaasha ka soo wada bixeen karti intaad yeelato oo naag noqoto oo afkaaga xirato oo aliiku isku xirto oo istighfaarta iyo dikri akhrisato dhexda u xiro nin dambana xaq iska dhigorto ilaa ma ilmahaagu maanta iyagu isku taraan iyagu maaragtay dad waaweyn oo qof walba maanta xilliga laga rabo uu noqdo inuu ka gaarayo ayaga xoog hadaa leedahay maskax hadaa leedahay garaad hadaa leedahay hadaa awood ayaga geli naag ayaga u noqo ayaga hooyo u noqo hooyo dareen leh hooyo hudayasho leh hooyo rol model ayaga u noqo haniye jabku wuxuu ku keenaa qofka caafimaad daro ku keenaa dhibaato ayuu u keenaa maahan inaa marwad uu iska fikirto tiraahdo gabadhan faciga ama dariskayga ninaa qabo saas ay qurux badan tahay ninaa garabkeeda taagan anigu maxaan u waaynin garabkayga taagan calafka waa nasiib qofba sidoo ku soo maro ayay inay u qaabishaa laga rabaa gabadha dariskaaga ah ee quruxda badan ee nin garabka taagan heshay ilaahay baa u dooray adiga 3 iyo 4 nin ilmaha ka dhashay ilaahay baa ku dooray marka waxa raba ilmahaaga inaad ogaato inaad ka dhigto hooyo kartil aad u noqoto ilmo isku hooyo ah ilmo isku aaba inaad ka dhigto oo u koriso
ooda cuqdad ka tusin ooda dhihin intaasoo dhan weligii isoo rafaadisay intaasoo dhan isoo silcisay ilmahan maaragta kan aaboodu wuu ii fiicnaa kan aaboodu wuu ii xumaanaada dhihin ayaa lagaa rabaa ee ilmahaaga aad korsato walaalahayga qaaliga waxaan filayaa in barnaamijku waaba dheeraada ma sii wadi kare inta ay waana in kugu filan tahay haddii aad caasi tahay maanta inaad ka baxda caasinimada isku day haddii aad baari tahayna ilaahay u mahadnaqo sii laba jibaar baarinimadaada waxyaabaha aad ka dhaxlaysa dad baari tahay waa kuu sheegayo ilmahaaga ayaa baari kuu noqon doona ilidaad furta ayaa kuu furmi doonta hurdo macaan oo wax kuu gashana waad seexan doontaa haddii aad caasi tahay laakiin walwal iyo walbahaar iyo istiri dhibaata ku jiri doontaa haddii aad tahay hooyo ilmo kale nooca haysato oo guurkeeda u batay maanta intaas cunug haysata stop hada ku joojininka ilmahana wax u taro hooyo u noqo hooyo lagu day sakar model ah u noqo shalay waxaan dhageysanayay gabar deeqsan magaceedu walahi gabadhaas gabar maasha Allah ah la wareysanayay wiili gabar baan haystaa ayay tiri shaah xataa usoo kariya ayay tiri waxyaabo badan baan usoo qabta ayay tiri weliga iyo Allah waxay tiri ilmahayga magacooda uguma aanan yeerin iyaguna magacayga hooyo heblaay ama aysan dhihin markaan u yeeray waxay tiri inantaydiyey meeye inantayda iyo ilaahay tiri inankaygiyo hooyo geesigaygiyo ilaahay tiri hooyo macaan waxaan ilma dhahaanay tiri weligood hooyo heblaay ama aysan dhihinay tiri ilmaha waxay tiri waxa caasinimada ugu wacan oo caasiga ka dhigay inta badan waalidka lambar 1 ka ahayd waryaa kaala qaa'iniyo ayaa la leeyahay tiri naaqaanadii maxay dhageysanaysaa ayaa la leeyahay bay tiri gabadha meesha wax kala baxaysa wiilku meesha wax kala baxaya waxay tiri waxaan awoodeeda ahayn maanta inaan anigu inta helo ilmahayga u baahan aan sameeyo diyaar ma ihi nin baa wareysanayay ninkaas nin ayada yaqaan ayuu ahaa weligii Allah ma aragta anigu labs marsanay tiri fasaliin bar marsadaa tiri waayo waxaan ogaa gabadheeda waa inay u baahan tahay maanta marsado anigu awood u lahayn macnaha oo u sameeyay in anigu soo marsado oo aan maanta ilaaha marsan ama hooyo ma awoodo ama waaba awooda hooyo ma wanaagsan banaanka ku aadi lahaa marsan iraahdo hada anigu marsado igama yeelaysaa ayay tiri wax badan bal ilmahayga daraadooda anu dhalinyaro ah uga tanaasulay bay tiri hooyada loo baahayna waa noocaasa maasha Allah waxaad meel ba joogtaan maalnimo wanaagsan laagshad commentiga waa xaqiina fikradaha quruxdana waa xaqiina hadii idin cajabiyiin barnaamijyadan insha Allah waa soo badi doona like-tiina iyo commentigiina iyo waxa laga arki doona hadalkiina insha Allah soo dhawaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.